السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال يمروين ميل والبا ودافع عالم كاد كجوجتانا halkani waa ISTV kusoo dhawaada warkii oo saacadahan oo kala nooga baratayna si toos idin ka soo tabino stuudiyaha ISTV ee magaalada Jigjiga warka waxa idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Axmed Cumar qodobada ugu door karoon ee wararka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah shirweynihii tobnaad ee ururka EPRDF ayaa si rasmi ah uga furmay caasimadda dawlad-deegaanka Tigray ee Maqale deeq bixiyayaasha Mareykanka iyo mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka wada tashaday mashruuc dhalinyarada loogu abuurayo fursado shaqo laguna dhimayo saboolnimada qodobada kale dheehan doontaan waxa kamid ah waxa si absami leh cilbiyooda xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka hirgelisay tuulada Mula uga faa'iideysanaya dadka iyo dunyada ku dhaqan tuuladaasi Mula ee ka tirsan degmada Qabri Bayax qodobada kale idin hayno waxa kamid ah tababar ku saabsan kobcinta aqoonta barayaasha wax ka dhiga kulliyadaha deegaanka ayaa waxa uu ka furmay magaalada Jigjiga qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba mar kale kulanti wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan shirweynihii tobnaad ee ururka EPRDF ayaa si rasmi ah uga furmay caasimadda dawlad-deegaanka Tigray ee Maqale shirweynaha tobnaad ee EPRDF ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha EPRDF ahna ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Haile Mariam Desalegn gudoomiye ku-xigeenka EPRDF ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Damaqe Mukannan gudoomiyaha TPLF ahna madaxweynaha dawlad-deegaanka Tigray Mudane Abay Waldo xubnaha EPRDF axsaabta bahwadaagta la EPRDF oo ka mid yahay xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo ay uga qayb galeen mas'uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ahna madaxweynaha dawlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar xisbiyada dalalka dariska iyo waliba xisbiga shuuciga ee dalka Shiinaha gudoomiyaha EPRDF ahna ra'iisul wasaaraha dalka oo ka hadlay furitaankii shirweynaha ayaa sheegay in guulaha iyo isbedelada kala duwan ee EPRDF soo hoysay ay shacabka dalku qayb weyn ku lahaayeen isla markaasna geediga iyo kobaca hor yaalla EPRDF ay aaminsan yahay in shacabku qayb weyn ka qaadan doonaan waxaan hadaladiisi kamid ahaa ጉባኤተኛ ጓዶች የተከበራችሁ ተጋባዥ እንግዶች ክቡራን የውጭ ወዳጅ ፓርቲዎች የልኡካን አባላት ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ ድርጅታችን ኢህአዴግ ለ10ኛ ጊዜ በሚያካሂደው ጉባኤ ለመሳተፍ እንኳን ወደ ውቢቷ ከተማ መቀሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩ በአገራችን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ወሳኝ ሚና ባለው በዚህ ታላቅ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ በመብቃታችንም እንኳን ደስ ያለን እንኳን አደረሰን ለማለት እፈልጋለሁ xubnaha mudanayaasha qaaliga ah ee shirweynaha ka soo qayb galay marti sharafta shirweynaha lagu casuumay xubnaha wufuuda sharafta leh ee ka socda axsaabta dalalka dibadda marwooyin iyo mudanayaal anigoo ugu horreyn idinku hambalyeynaya sida aad ugu soo qayb gasheen shirweynaha tobnaad ee xisbigeena EPRDF isla markaana idinku soo dhaweynaya magaalada bilicda badan ee Maqala ayaa waxaan jeclahay inaan aad idin idhaahdo baga ayaan nabad ku gaadhnay baga ayaan ku wada faraxnay ka soo qaybgalka shirweynaha ahamiyadda gaarka ah u leh arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo siyaasadda dalkeena በድርጅታችን መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የኢህአዴግ የመጨረሻው ከፍተኛ የአመራር አካል ድርጅታዊ ጉባኤ ሲሆን ኢህአዴግ እስካሁን 9 መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤዎች አካሂዷል አምባገነኑን የደርግ ስርዓት በመደምሰስ የተለያየ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸው አካላት የሚሳተፉበት የሽግግር መንግስት የሚመሰረትበትን የመሰረት ድንጋይ ከጣለው የ1983 የቴምቤኑ የመጀመሪያ ድርጅታዊ ጉባኤያችን ጀምሮ በድርጅታችን ብሎም በሀገራችን እንዲሁም በዓለም የፖለቲካ መድረክ ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ አሻራዎችን አስቀምጦና አገራችንን በህዳሴ ጉዞ ሀዲድ ውስጥ አስገብቶ ባለፈው ታላቁ መሪያችን ጓድ መለስ ዜናዊ መስዋዕት ማግስት እስካካሄድነው 9ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ድረስ የተካሄዱት ጉባኤዎቻችን የየወቅቱን የትግል ምዕራፎች ያገናዘቡ ትክክለኛ አቅጣጫዎችንና ውሳኔዎችን ያስቀመጡ ነበሩ።
sida kooxda xeer hoosaadka xisbiga shirweynahani waa kulanka ugu sarreeya ee hogaaminta xisbiga sidaas awgeed waxa hadda ka hor xisbiga EPRDF u soo qabsoomay 9 shirweyne shirweynahani wuxuu isu keenay dhinacyo ku kala duwan afkaarta siyaasadeed kadib markii afka raiiska loo daray kaliya taliyihii dhargiga laga soo bilaabo shirweynihii koobaad ee xisbiga 1983 tirsiga Itoobiya ee Tandan oo ahaa kii dhidibada loogu aasay laguna unkay dawladda ku meel gaarka ahayd waxa shirweynayaasha xisbigu yihiin kuwa ku soo biiriya xisbiga dalka iyo saaxadda siyaasadda caalamkaba raad waqtiga la jaan qaada oo facba kan kale uga gudba kuwaasoo dalkeena cagta u saaray dhabaha geediga xadiidka ah ilaa la soo gaadho shirweynihii sagaalaad ee qabsoomay kadib horeeshadii hogaamiyaheenni weynaa ee Malla Zanaawi waxa shirweynayaasheenu ahayeen kuwa uu mid kastaaba ku habboon yahay isla markaana la shaqaynaya xaaladaha jira oo ay ka soo baxayeen jihooyin sugan iyo go'aamo saxan ካለፉት ጉባኤዎቻችን መካከል በ1993 ዓመተ ምህረት የተካሄደው አራተኛው ድርጅታዊ ጉባኤያችን ኢህአዴግ በውስጡ የተጠቀነበትን የመበስበስና የጥገኛ ዝግጠት አደጋና መገለጫዎች በጓድ መለስ በቂ ጥናትና ትግል ላይ ተመስርቶ የድርጅታችን የትግል መስመር በማጥራት የታድሶ አቅጣጫዎቻችንን በጥራት በማስቀመጥ ወደ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የተሸጋገረበት ታሪካዊ ጉባኤ ነበር። ይሄው ጉባኤ ኢህአዴግ በትግሉ ወቅት እንደ ወርቅ በእሳት ተፈትኖ ያለፈበትን መድረክ በመድገም የዓላማ ጽናትና ህዝባዊ ወገንተኝነት ያለው ድርጅት መሆኑን ዳግም ያረጋገጠበትም ጉባኤ ነበር። በታድሶ ጠርቶ በወጣው ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመር እየተመራም ባለፉት ተከታታይ 12 ዓመታት አገራችንን በፈጣንና መሰረተ ሰፊ እንዲሁም የአገራችን ህዝቦች በየደረጃው መጠቀም የጀመሩበት እድገትና ልማት በማስመዝገብ በህዳሴ ጉዞ ወደፊት እንድትገሰግስ አስችሏል። shirweynayaashani laga soo gudbay waxa kamid ah shirweynihii afraad ee qabsoomay 1993 tirsiga Itoobiya oo ahaa shirweynihii lagu saxay hoos u dhici caqabadihii iyo dulsaarnimadii ka jiray gudaha xisbiga kuwaasoo lagu turxaan bixiyay daraasaadkii iyo cilmi baadhistii iyo halgankii mudane Males oo nadiifiyay tubtii halganka xisbigeena isla markaana si hufan u sargooyay jihooyinkeena dib u habaynta wuxuu ahaa shirweyne taariikhi ah oo aan uga gudubnay bog cusub oo taariikhi ah wuxuu shirweyne soo celiyay masraxiyadii halgankii ka kana ee EPRDF sida dahabka loogu dhalaaliyay dabka uu holaca ugu beegsaday kaasoo ahaa fagaaro uu markale xisbiga ku xaqiijiyay hal adeega dhinaca shimilada iyo sida uu heeganka ugu yahay hiilka iyo ciildhicinta shacabka oo garab iyo gaashaanba ugu yahay bulshada isagoo raacaya tubta lagu sifeeyay nidaamka dib u habeynta isla markaana raacaya tubta horumarineed ee nidaamka dimuqraadiyadda ayaa 12 sano ee la soo dhaafay wuxuu dalka ka hirgeliyay horumar taxana ah oo salbalaalan oo dhammaanba qaybaha bulshada ay u dhantahay isagoo waliba dalka cagta u saaray tubta geediga dib u curashada 2005 ዓመተ ምህረት የተካሄደው 9ኛው ድርጅታዊ ጉባኤያችንም በከፍተኛ የአመራር ብቃቱ ድርጅታችንን ለማያቋርጡ ድሎች የሚያበቃ አመራር በመስጠት ቁልፍ ሚና የተጫወተውን ታላቁ መሪያችን ጓድ መለስ ዜናዊን ባጣንበት ማግስት የተካሄደ ነበር። ወቅቱ በአንድ በኩል ታላቁ መሪያቸውን ያጡት የሀገራችን ህዝቦች በጥልቅ ሐዘን ውስጥ ሆነው የተጀመረውን ልማትና ዲሞክራሲ በማስቀጠል የታላቁን መሪ ራዕይ እናሳካለን በማለት ቃል ኪዳናቸውን ያደሱበት፣ በሌላ በኩል የጽንፈኛና የጸረ ሰላም ኃይሎች አጋጣሚውን ተጠቅመው አገራችንን ለማተራመስ የቋመጡበት ወቅት እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። በዚህ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የተካሄደው 9ኛው ድርጅታዊ ጉባኤያችን በመለስ አስተምሮች ጠንካራ ድርጅትና የልማት ኃይሎች ንቅናቄ ለህዳሴያችን በሚል መሪ ቃል የህዳሴ ጉዞአችንን አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚያስችሉ አቅጣጫዎችንና ውሳኔዎችን በማስተላለፍ የተጀመረውን ልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሳይስተጓጎል ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስችሏል። shirweynihii sagaalaad ee xisbigeenu wuxuu qabsoomay sanadkii 2005 tirsiga Itoobiya taasoo ku beegnayd markii aan weyne hogaamiyaheenni weynaa mudane Males oo kaalin halyeennimo ku qaatay isagoo adeegsanaya hibadii uu lahaa xeeladaha hogaaminta sidoo dalku heli lahaa hogaamin u horseeda hanashada guulo xidhiidh ah waqtigaasi wuxuu markii dhinac laga fiiriyo mid uu shacabka dalku isagoo ka murugaysan geeridii ka qaaday hogaamiyahoodii weynaa ay wacad ku marayeen
in ay sii wadayaan oo ay boodhka ka jafayaan hadafyadii himilooyinkii horumarineed ee uu ka tegey mudane malas. dhinaca kalena wuxuu ahaa mid lagu xasuusto inuu hagaashaan looga hortegay oo soo koobay rajadii ay xoogaga xagjirka ahi ku gaadayeen iyagoo dhacdadan ka faa'iidaysanaya ay khalkhal iyo jahwareer ka abuuraan dalkeenna. haddaba shirweynaha sagaalaad oo ah mid qabsoomay iyadoo ay jiraan xaaladaha noocan ahi ayaa halkudheggiisu waxa uu ahaa waxaan dibi curashadeenna ku xaqiijinaynaa tubtii malas iyo xisbi awood u leh dhaqaajinta xoogaga horumarineed. waxaana ka soo baxay go'aamo iyo jihooyin lagu xaqiijinayo geedigeenna dibi curashada kuwaasoo si dhab ah u xaqiijinayay inay sidii loogu talagalay u socdaan howlihii horumarineed ee dalka ka socday. አስረኛው ድርጅታዊ ጉባኤያችንም የዘጠነኛውን ድርጅታዊ ጉባኤ ውሳኔዎች አፈጻጸም በጥልቀት የሚገመግምና የቀጣይ እድገትና የዘላቂ ልማትን የሚያረጋግጥ ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት የሚያስችሉ አቅጣጫዎችንም የሚያስቀምጥ ይሆናል። shirweynaheena tobnaadna wuxuu noqonayaa mid si gundheer loogu qaada dhigayo qaab socodkii fulineed ee go'aamadii shirweynihii sagaalaad ee xisbigeenna, isla markaana wuxuu noqonayaa mid ay ka soo baxaan jihooyin horumarineed oo lagu qaada dhigayo isbeddel iyo kobac waara. xubnaha qaaliga ah ee shirweynaha martisharafta laga casuumay waxaan shirweynaha tobnaad ee xisbiga qabanaynaa waqti muhiimad gaar ah u leh xoojinta iyo dardargelinta geediga dibi curashadeenna. waa shirweyne ku soo beegmay waqti la soo gunaanaday mid ka mid ah arrimihii aadka ugu weynaa labadii shirweyne ee ka horreeyey, kuwaasoo ahaa qorshihii koowaad ee kobaca iyo isbeddelka oo ka soo maaxday handasadii mudane mala zanaawi oo la soo gabagabeeyey, iyo qorshihii labaad ee kobaca iyo isbeddelka oo fulintiisii loo diyaargaroobayo. qaabu socodkii fulineed ee qorshihii koowaad ee kobaca iyo isbeddelka markii laga eego dhinaca dejinta qorshayaasha waaweyn, jebinta aragtida isasaluugga ah lama awoodo. dhinacyadeenii adkaa iyo kuwii jilyada sanaaba waa mid laga helay khibrado iyo casharro baaxad leh oo looga faa'iidaysanayo qaabka diyaargarowgeenna aan ugu jirro fulinta qorshaha labaad ee kobaca iyo isbeddelka. qorshahan oo ay fulintiisa iska kaashadeen xisbiga, dowladda iyo shacabku, waxaan ku guulaysanay in aan sii wadno kobac dhaqaale oo xawli degdeg ah ku socda. dadaalada ballaadhan ee aan muddadii qorshahan fulinay ayaa suuro geliyey inaan dal ahaan iskaga fillaanno dhinaca cunnada. haddaba waxaan jeclahay in aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga aan si weyn ugu mahadceliyo heerarka kala duwan ee hoggaaminta iyo fuliyayaasha oo door hormuud ah ka qaatay fulinta qorshahan, iyo shacabka oo ah hormuudka horumarka. waxaa kaloo aan iyagana si weyn ugu mahadcelinayaa axsaabta iyo dalalka jecel horumarkeenna, aniga oo shucuubta dalalkooda u sii marinaya iyaga. waxaa soo ifbaxay guulaha aan ka soo hoynay hirgelinta himilooyinkii dheeraa ee qorshihii koowaad ee kobaca iyo isbeddelka ee aan ku beegsanaynay inaan kaga mid noqonno dalalka dakhliga dhexdhexaadka ah. waxay riyadiina dhawoobaysaa oo keliya markii ay xisbigeenna dimuqraadiga tawriga ahi iyo dowladdeennan horumarineed shaqada ugu mashquulaan si hagar la'aan ah. wakhtigii la fulinayay qorshihii himiladeenna waxaa jiray caqabado u baahan inaan mustaqbalka xallinno, waxna ka baranno, iyo habacsanaan xaasxaasi ah. ma aynaan gaadhin heer aan dhinaca dib u habaynta hoggaaminta aan ka keenno isbeddel gundheer. way jirtaa siyaasadda dulsaarnimadu iyada oo weliba awood ku leh magaalooyinka. shacabkeenna weli ma aynaan gaadhsiinin heerkii ku mudnaa dhinaca ka qaybgalka dhinacyo badanaha ah. maadaama oo warbixintaas lagu sheegay dhinacyadii adkaa iyo dhinacyada jilyada sanaa ee qaabfulinta qorshaha, waxaa shirweynaha laga filayaa inuu si gundheer u qiimeeyo, islamarkaana ka soo saara go'aamo iyo jihooyin lagu sii xoojinayo dhinacyada adag, laguna toosinayo dhinacyada liita, kuwaasoo lagu sii xoojinayo geediga dib u curashadeenna. arrinta kale ee shirweynaheenna tobnaad taariikhi ka dhigaysa ayaa waxay tahay inuu ku soo beegmay wakhti uu xisbigu si weyn ugu soo baxay doorashadii guud ee markii shanaad dalka ka qabsoontay, oo ahayd mid u qabsoontay si xor, cadaalad iyo dimuqraadiyad ah. xisbiga EPRDF wuxuu sida ugu habboon faham buuxa uga haystaa fariimaha shacabku ku soo gudbiyey doorashadii iyo dhambaallada ka dambeeya, iyadoo uu sideeda yahay go'aanka uu shacabku qaatay, isagoo adeegsanaya xuquuqdiisa qarannimo, taasoo muujinaysa kalsoonida shacabku ka qabo xisbiga, guulaha uu soo hoyey, iyo inuu saxayo dhaliilaha la taabanayo, isagoo oo ka duulaya dabeecadihiisa shacabnimo iyo kuwa tawriga ahba. waxa ay ahayd marxalad shacabka u kala socda xisbiga hoggaamin kara iyo midka u muhorqaadaya waxaan jirin, taasoo shacabku qaatay go'aan geesinimo iyo indheergaradnimo leh. guud ahaan, maadaama uu guulaystay nidaamka dimuqraadiyadeed ee horumarku, wuxuu ahaa go'aan shacabku suuro geliyey inuu sii socdo geediga dib u curashadeennu. dhinaca kalena waxa uu go'aan indheergaradnimo oo shacabku ku gaadhay inuu meesha ka baxo nidaamka siyaasadeed ee mandhalayska ah ee xisbi qudhah ku keliyaysto talada dalka, taasoo kor u qaaday nidaamka xisbiyada badan. haddaba anigoo ku hadlaya magacayga iyo dhammaan magacyada xubnaha xisbiga ayaa anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda shirweynaha tobnaad ayaan jeclaa inaan halkan uga gudbiyo
xushmadda iyo sharafta ballaadhan ee u hayo shacabka sida xilkasnimada leh ee sababaysan taageerada buuxda u siiyey xisbigeenna maadaama shacabkeennu xil iyo ammaano tunka u saaray xisbiga waxaan shirweynahan tobnaad laga filayaa inay ka soo baxaan go'aamo iyo jihooyin suuro geliyey in si karti leh u guto ammaanadan mudanayaasha qaaliga ee shirweynahan iyo marti sharafta la casuumay maadaama xilkan uu shacabku u xambaariyey xisbiga EPRDF si uu u guto waajibaadkiisa isla markaana uu hirgeliyo kobac sare iyo isbeddel dhaqaale wuxuu dalka ka fuliyey fagaarayaal iyo kulamo kala duwan oo laga qaybgeliyey qaybaha kala duwan ee bulshada oo lagu qaadaadhigayo qorshaha labaad ee kobac iyo isbeddelka haddaba jihooyinka ugu waaweyn ee shirweynaha tobnaad uu sida qotada dheer uga hadlayo ayay ka mid tahay jihadani gudoomiye ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ahna madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo shirweynaha ka hadlay ayaa sheegay in halgankii qaraadha ee EPRDF la gashay kaligii taliskii dhargiga isla markaasna xukunka looga turay iyadoo la kaashanayo shacabka dalka inuu horseeday in Itoobiya ay ka hirgasho sinaan dimuqraadiyad iyo cadaalad ay isku maamulaan qoomiyadaha dalka qoomiyadaha sida aadka uga faa'iideystaan ay ka mid tahay qoomiyadda Soomaalida Itoobiya waxaan hadaladiisi ka mid ahaa ጓድ ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢህአዴግ ሊቀመንበርና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጓድ ደመቀ መኮንን የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበርና የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበራችሁ የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራሮች የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች የተከበረው የመቀሌ ከተማ ህዝብ ክቡራትና ክቡራን ጓድ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጉዶሚያha EPRDF ahna ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ጓድ ደመቀ መኮንን ጉዶሚye ku-xigeenka EPRDF ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mas'uuliyiinta sare ee sharafta leh EPRDF marti sharafta ka soo qayb gashay shirweynaha shacabka sharafta leh magaalada Maqale marwooyin iyo mudanayaal ከሁሉም አስቀድሜ በኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም ህዝባዊ አደራን በላቀ እድገትና ትራንስፎርሜሽን በሚል መሪ ቃል የታጀበውን የኢህአዴግ 10ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ marka hore aan ku hadlayo magaca xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya waxaan leeyahay bagaad nabad ku gaadhnay shirweynaha tobnaad ee EPRDF ee halku dhagiisu yahay mas'uuliyaddan u hayno shacabka waxaanu ku sii hirgelinaynaa kobac iyo isbeddel dheeriya ከዛሬ 25 ዓመታት በፊት ኢህአዴግ የሀገራችን ህዝቦች ከጎኑ በማሰለፍ ለዘመናት በህዝባችን ጫንቃ ላይ ተንሰራፍቶ ከቆዩት ጸረ ዲሞክራሲያዊ የጭቆናና የአፈና አገዛዝ ስርዓቶች ጋራ ባካሄደው እልህ አስጨራሽ የትጥቅ ትግል አምባገነኑ የደርግ ስርዓት ማስወገዱ ይታወሳል waxa la xasuusan yahay 25 sano ka hor EPRDF oo garabsatay shacabka dalka inay halgan qadhaadh oo hubaysan oo aan waxba la isku harin la gashay maamulkii dimuqraadiyadeedka ahaa ee harqoodkii cadaadiska surka u galiyay shacabka dalkeena sanooyin badan ee ku dhisnaa caburinta halgankaas hubaysan oo horseeday in xukunka la wadaariyo kala taliskii dargiga በመቀጠልም ኢህአዴግ የሀገራችን ህዝቦች ለዘመናት የተነፈጉትን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ያጎናጸፈ ለሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ራስን በራስን የመስተዳደር መብት ያበሰረ ህገ መንግስታችንን ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች አምነው በመረጡት ወኪሎቻቸው ያጸደቀ መሆኑን ይታወቃል intaas kadib EPRDF waxay sargoysay dastuurka ka jawaabay xuquuqihii dimuqraadiyadda iyo bani'aadamtinimada ee qoomiyadaha iyo shucuubaha dalka ee sabanada badan laga duutiyay kana maqnaa kaasoo qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya u horseeday inay neecawda sinaanta isku maamulaan si madax bannaan dastuurkan oo ah mid qalinka ay ku duugeen ansixiyeen wakiilada ay ku kalsoon yihiin qoomiyaduhu iyaguna ay doorteen የዛሬው የኢህአዴግ 10ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ልዩ ከሚያደርጉት ነጥቦች በመጀመሪያ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን በኢህአዴግ የሚመራው ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት የተገበራቸውን የልማት ተግባራት የህዝባችንን ይሁንታ በማግኘት የልማታዊ መስመራችንን ትክክለኛነቱን
በ2007 በአምስተኛው የአጠቃላይ አገራዊ ምርጫ ያረጋገጠበት እንደዚሁም በኢህአዴግ የሚመራው ልማታዊ ፌደራላዊ መንግስታችን የሀገራችንን ሰላምታ ከማስከበር ባለፈ የአፍሪካ አህጉር ሰላም አስከባሪነት በመሆኑ በዓለም አቀፍ መድረኮች የተረጋገጠበት shirweynaha tobnaad ee PRDF maanta waxa gaar ka dhigaya qodobo dhowr ay ka mid yihiin in dawladda horumarineed ee dimuqraadiga ee PRDF hogaamiso qorshayaasha horumarineed ee qorshaha kobacaya isbeddelka wareegiisii koowaad guulaha laga soo hooyay inay shacabkeena kalsooni geliyeen isla markaana tubteena horumarineed inay tahay mid waadix ah waxay shacabku ku xaqiijiyeen doorashadii shanaad ee 2017 marka labaad dawladdeena horumarineed ee federaaliga ah ee PRDF hogaamiso kadib markay amniga dalkeena xaqiijisay waxay noqotay nabad ilaaliyaha qaaradda Afrika taas oo looga markhaati kacay fagarayaasha caalamiga iyo walibana xilli aan xusayno xasuusanayna hogaamiyaheena aragtida dheer ee Mel Zenawi sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay markuu inaga tagay oo tubihii horumarineed ee uu hindisay aanu ku xaqiijinayno inaan sii wadayno የኢህአዴግን ሰላማዊና ልማታዊ መስመር በመከተልና በመታገዝም ህዝባችንን ከጎናችን በማሰለፍ በአሁኑ ወቅት በክልላችን በሁሉም አካባቢዎች አስተማማኝ ሰላም ተፈጥሯል። የተፈጠረውን ሰላም በመጠቀም ህዝባችን ፊቱን ሲናፍቀው ወደ ነበረው ልማት በመመለስና ከስጋት ነፃ ሆኖ በመንቀሳቀስ ውሃን ማዕከል ባደረገ አካባቢውን በማልማት ላይ ይገኛሉ። annagoo raacayna kaashanayna tubta horumarka iyo nabadgelyada ee PRDF dejisay isla markaana garabsanayna shacabkeena waqti xaadirkan deegaankeena waxa ka jirta goob kasta nabadgelyo la isku halayn karo annagoo ka faa'iideysanayna nabadaas shacabkeenu waxa u jeesteen dhankii horumarka ay u jeelanayeen iyagoo aan qabin wax walaaca iyo walwala isla markaana adeegsanaya horumarka halbeegiisu yahay biyaha በመጨረሻ የተጀመረውን ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እና የህዳሴ ጉዟችን ለማሳካት እንደዚሁም የጀመርነው ዘርፈ ብዙ የልማት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን የመልካም አስተዳደር የማስፈን ተግባራቻችን በተሳካ ሁኔታ ለማረጋገጥ ከአጋር ድርጅታችን ኢህአዴግ ጋራ የሚኖርን ግንኙነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan idin caddeeyo inaan sii xoojinayno xiriirka bahwadaagtinimo ee aan la leenahay PRDF si aan uga midhodhalno qorshayaasha kobaca iyo isbeddelka wareegga labaad ee bilowday geedigeena dib u curashada shaqooyinka aan bilownay dhinacyo badanayaasha ay horumarka hanaanka dimuqraadiyadda maamulka suban iyo awoodda fulneed ድልና ድምቀት ለኢህአዴግ አስረኛ ጉባኤ ክብሩና ሞገስ ለትግሉ ሰማዕታት አብሮነታችን አጋርነታችን የዓላማ አንድነታችን ተጠናክሮ ይቀጥላል። አመሰግናለሁ። guulya reereen ha u sugnaato shirweynaha tobnaad ee PRDF sharaf iyo karaamo waxa iska leh halgamayaashii shahiiday wadajirkeenu waa bahwadaagtinimadeena kumidowga hadafkeenuna waa uu sii soconayaa waad mahadsantihiin قوميادا هاي قارن كلا الساعة القرش ميدا عياي وحكو قيب سوا قوميادا هاي قارن كلا الساعة القلب فرح صفاي وحكو قيب سوا قوميادا هاي قارن كلا الساعة القرش ميدا عياي وحكو قيب سوا قوميادا هاي قارن كلا الساعة القلب فرح صفاي وحكو قيب سوا عياي وحكو قيب سوا قوميادا هاي قارن كلا الساعة القلب فرح صفاي وحكو قيب سوا قوميادا هاي قارن كلا الساعة القرش ميدا عياي وحكو قيب سوا قوميادا هاي قارن كلا الساعة القلب فرح صفاي وحكو قيب سوا
gambeley naftaydu qushuucday qodalka oromiyey naftaydu qushuucday khayraadka soomaaliday naftaydu qushuucday qabilaada dhabukay naftaydu qushuucday qalbigaan ku hayaayo canfarna qushuucday ira weyn igu reebto heraari qushuucday quraanu ahaano birshaanku qushuucday qalbigaan ka midowno intaba qushuucday qabwacnaanta tigreegay naftaydu qushuucday inigeeda axmaaray naftaydu qushuucday ciidda gambeley naftaydu qushuucday qodalka oromiyey naftaydu qushuucday khayraadka soomaaliday naftaydu qushuucday qabilaada dhabukay naftaydu qushuucday qalbigaan ku hayaayo canfarna qushuucday xisbiyada dalalka kala duwan ee bahwadaagta la ah EPRDF oo ka hadlay shirweynahana ayaa waxay cadeeyeen inay sii xoojin doonaan bahwadaagtinimadooda ay la leeyihiin EPRDF. qowmiyada haya qarankeena isjecel qalbi faraxsan wax ku qaybsada qowmiyada haya qarankeena isjecel qarashameeda ayay wax ku qaybsadaan. xisbiyada dalalka kala duwan ee bahwadaagta la ah EPRDF oo ka hadlay shirweynahan ayaa waxay cadeeyeen inay sii xoojin doonaan bahwadaagtinimada ay la leeyihiin EPRDF. wakiil u hadlay xisbiga shuuciga ee dalka Shiinaha ayaa sheegay inay sii xoojin doonaan xiriirka bahwadaagtinimo ee EPRDF la leeyihiin sidoo kalena ay EPRDF ku garab taagan yihiin horumarka xawliga ah ee dalka ka wado. 9 years ago, I had the chance to attend the 6th Organizational Congress of EPRDF here in Makale. 9 sano ka hor waxaan nasiib u helay inaan ka qayb galo shirweynihii lixaad ee EPRDF kaasoo ka dhacay halkan Maqale waxaana ku jiray waftigii xilligaasi la casuumay. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto Maqale si aan uga qayb qaato shirka tobnaad laga bilaabo Maqale ilaa Hawaasa laga bilaabo Adma ilaa Bahardar waxa uu shirweynahani markhaati ka yahay horumarka EPRDF iyo Itoobiya 10 sano ee la soo dhaafay waxa Itoobiya la ogaaday in uu kordhayo dhaqaalaheedu sanad kasta waxay noqotay wadanka ugu dhaqaalaha kororka badan dhammaan adduunka 10 sano ee ugu dambeeyay waxa kordhaya xawliga kororka dhaqaalaha Itoobiya waxayna maanta dadka Itoobiya ku nool yihiin nololtii hore aad uga wanaagsan waxaad dhiseen jidad tareen haddana waxaad dhisaysaan biyo xidheenka ugu weyn qaaradda Afrika marka aan u soo laabto saaxiibtinimada Itoobiya aad baan ugu faraxsanahay horumar kasta oo aad gaadheen EPRDF waxay door muhiim ah ka ciyaartay dhammaan horumarka dalka waa xaq in aan dhahaa haddii aysan hogaaminta EPRDF aysan jiri lahayn Itoobiya ma gaadheen horumarkan badan hadafka hogaaminta EPRDF waxay Itoobiya ku gaadhaysaa horumar aad u wanaagsan 20 sano ee ugu dambeysay waxay lahaayeen labada dal xiriir aad u wanaagsan waxaana doonaynaa in aan sii xoojino iskaashiga iyo xiriirka labada dhinac waxaana aad ugu hambalyeeynaa shirka tobnaad waxaana u rajaynaynaa guul mar kasta hawaara xiriirka Itoobiya iyo China. Long live EPRDF. Long live friendship of CPC and EPRDF. sidoo kale wakiil u hadlay xisbiga Koongareeska qaranka Suudaan ayaa sheegay in dawladda Suudaan ay markastaba Itoobiya barbar taagan tahay isla markaasna ay ka sii shaqayn doonaan si xoojinta xiriirka labada shacab u dhaxeeya. I like to thank you for the warm welcome and the typical Ethiopian hospitality extended to us since our arrival here. waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran ee nalagu sameeyay halkan ilaa xilligaan nabadnay waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan ka sheego in dhammaan hogaaminta madaxda iyo dadka dalka Suudaanba ay si weyn idinku hambalyeynayaan guul ay idin rajeynayaan waxaan jeclaynaa fursadan uga faa'iideysto hambalyeynaan oo hambalyeynayo EPRDF iyo taageerayaasheeda guushay ay ka soo hooyeen doorashadii ka dhacday dalka bishii May sanadda 2015 waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan si daacad ah u soo gudbino hambalyadayada walaalaha Itoobiya aanu hayno hogaaminteeda iyo dadkeedaba waxaan aad ugu hambalyeynayaa guulaha iyo horumarka uu wadanku ku talaabsaday muddooyinkii ugu dambeeyay khaasatan markaan eegno horumarka dhinaca dhaqaalaha kaasoo la hubiyay inuu yahay mid dheelitiran waana horumar si wanaagsan loo qaybiyay ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa walaalaha Itoobiya dadka iyo hogaaminta Itoobiya iyo deegaanka Tigray waxaan idin rajaynayaa guul
sidoo kale dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka koonfurta suudaan wakiil u hadlay ayaa sheegay in Ethiopia ay door muhiim ah ka ciyaartay in koonfurta suudaan ay xorriyad hesho isla markaasna ay nabadgelyo ka dhacdo koonfurta suudaan. We bring to you greetings and best wishes from Comrade Salva Kiir Mayardit. waxaan hambaliyay ee salaan idinka wadnaa dadkii iyo hogaamintii koonfurta suudaan. ahmiyadda faraynteeduna waa in dadaalkii saaxiibtinimadii uu waddanka noo sameeyey laga soo bilaabo Mele Zenawi ilaa ra'iisul wasaaraha hadda iyo dadka Itoobiya kuwaasoo la soo maray koonfurta suudaan waqti aad u xun haba ugu dambayso khilaafkii dhawaayna soo dhaxgalay. waxaan aad ugu bognay doorka ay hogaamintu ka qaadatay xalinta khilaafaadka ka taagnaa dalkayaga, waana mid aanan ilaawi doonin. waxaan xasuustaa waqtigii xumaa iyo sidii looga gaadhay heshiiskii iyo weliba dadaalka Itoobiya uga soo gashay. waxaan halkay ku soo xidhayaa horumarka iyo dhaqaalaha ay gaadhay Itoobiya. waxaan idin rajaynaynaa guul tan ka sii wanaagsan. waxaan idin leenahay waxaad noo tihiin tusaale wanaagsan cibri dherer reer Itoobiya. sidoo kale xisbiyada Rwanda, Uganda iyo Koonfur Afrika ayaa waxay sheegeen in EPRDF ay Itoobiya ka hirgelisay kobac dhaqaale oo xawli ah oo qaaradda Afrika tusaale u ah, ayna sii xoojin doonaan xiriirka bahwadaagtinimo ay la leeyihiin EPRDF. On behalf of the leadership of Rwanda's Patriotic Front, RPF, anoo ku hadlaya magaca Rwanda, aad baan ugu mahad celinayaa casuumadan lagu marti qaaday inaan ka soo qayb galno shirweynaha tobnaad ee EPRDF. waxay leeyihiin labada dal xiriir dheer oo ka soo dhaxeeyay dalka iyo dadka. EPRDF waxay garab taagneed Rwanda waqtiyo faqri iyo marxalad xun ay ku jirto. waxaa la dhahaa saaxiibka dhabtahay waa kan loo baahan yahay. Itoobiya waa dadka iyaga, waxaan aad ugu mahad celinaynaa xiriirka qotada dheer ay nala leeyihiin. waqti xaadirkan waxay wadaan howlo uu bilaabay ra'iisul wasaarihii hore Mele Zenawi, waana mid muhiim u ah wax ka beddelka dhaqaalaha iyo horumarka labada dal. dhaqaalaha iyo horumarka ay ku tallaabsatay Itoobiya waa mid ku dayasho mudan, kaasoo laga baranaya cashiro. aad baan idinku mahad celinayaa dhammaan marti sharafta halkan ku sugan. I bring you greetings from the people of Uganda and more so from the chairman of the party that I'm here representing, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, and the entire leadership of the party. waxaan idinka wadaa salaan iyo hambalyo diiran dhammaan dadka iyo xisbiga Uganda. waxaan idinka mahad celinayaa dhisidda aad dhisateen riyooyinkii aabbayaasheen idinkoo midaysan. ma ahan wax ku kooban dadaalka EPRDF Itoobiya oo keliya, laakiin waa mid ay gaadheen dhammaanba Afrika. waxaan idinka mahad celinaynaa tusaalaha wanaagsan ee aad noo tihiin. had iyo jeer waxaan idin haynaa sharaf iyo xurmo, had iyo jeerna sii xoojiya midnimada iyo horumarka. waa dadaal ballaaran oo sheegaya midnimadeenna iyo inaan halkan meel isku wada nimaadno si aan uga wada shaqayno dhaqaalaha qaaradda Afrika. waxaan filayaa in Ethiopia ay u tahay tusaale wanaagsan dhaqaalaha qaaradda Afrika. xaqiiqdiina waxayna tusaysaa dadaal ballaaran oo ay sameeyeen xisbiyadu. waxaan rajaynaynaa in EPRDF ay noqoto horyaalka marka la eego nidaamyada horumarka qaaradda Afrika. ururka midowga Afrikana waa garabkiina. waxaan idin rajaynaynaa guul iyo cimri dheer EPRDF. This is very important for us all. We, the Chama cha Mapinduzi, CCM Party from Tanzania. tani waa mid muhiim noo wada ah. waxaan wadaagaynaa khibrado, waxaanan aqoon ka helaynaa xisbiyada kale. labada dal waxay si wada jir ah uga shaqaynayaan nabadda iyo horumarka muddada dheer. nabad la'aanteedna horumar ma jirto. Itoobiyana waxay noogu yeedhay nabadda. waxaan aad ugu hambaliyeynaynaa nabadda aad haysataan walaalaha Itoobiya. saaxiibada Itoobiya waa saaxiibada Tanzania. waxaan markhaati ka nahay horumarka Itoobiya, waxayna moodel u tahay dhammaan qaaradda Afrika, waana mid aan uga mahad celinayno taas. waa waddan nabadeed. We would like further to congratulate once again EPRDF under the visionary leadership of Prime Minister Haile Mariam Desalegn and its allies for having won overwhelmingly at the last held parliamentary and regional elections. waxaan aad ugu mahad celinayaa Itoobiya guushii ay ka gaadhay doorashadii kal dhaweyd. waxaan aad ugu mahad celinayaa EPRDF iyo ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn iyo sida quruxda badan ay u qabsadeen doorashadaas. xisbiga talada haya EPRDF waxay sameeyeen horumar ballaaran, waana mid aan markhaati ka wada nahay. waxaan jecel lahaa inaan u hambaliyeeyo EPRDF. waxay leeyihiin xiriir aad u wanaagsan. waxay ku faanaan IGAD iyo EPRDF xalka ay ka gaadheen nabadda koonfurta Suudaan. waxaan aad u xasuusanaa dhaqdhaqaaqyadii dhammaan xisbiyada talada haya ee qaaraddan Afrika.
waxaan ku faanaynaa EPRDF waanan uga mahadcelinaynaa Itoobiya waxaan nahay qaramo midaysan waanu sii wadaynaa taas horumarka iyo dhaqaalaha waddanka Itoobiya waxaan u rajaynayaa inuu noqdo mid sii socda oo waara deeq-bixiyayaasha Mareykanka iyo mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka wada tashaday mashruuc dhalinyarada loogu abuurayo fursado shaqo laguna dhimayo saboolnimada sida warbixintan inoogu sheegay wariye Maxamed Jirde Ismaaciil kulankan lagaga wada xaajoonayay hoos u dhimidda saboolnimada ayaa waxaa ka soo qayb galay deeq-bixiyayaasha Mareykanka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xafiiska haweenka dhalinyarada iyo carruurta wakaaladda shirkadaha yaryar hay'adda adeegga lacagaha yaryar TVETka iyo kuliyadaha deegaanka sidoo kale hay'adaha ka howlgala deegaanka ujeedada kulankan ayaa ah sidii dhalinyarada deegaanka loogu abuuri lahaa fursado shaqo loona kobcin lahaa xirfadooda iyo awoodooda dhaqan-dhaqaale waxaana furitaankii ka hadlay la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca hay'adaha mudane Cabdifataax Axmed oo sheegay in hay'adahani awal hore ka shaqayn jireen arrimaha samafalka haddana ka shaqaynayaan horumarinta asaasiga sidoo kale mashruucan cusub ayaa ah mid dhalinyarada deegaanka loogu abuurayo fursado shaqo taasina waxa ay hoos u dhimaysaa camal la'aanta waxay wax weyn ka taraysaa dhalinyarada afkaartooda sidoo kale waxa ay qayb weyn ka tahay horumarinta dhaqaalaha wuxuuna mas'uulku uga mahad celiyay deeq-bixiyayaasha Mareykanka sidoo kale waxa hadallo ka soo jeediyay isku duwaha hay'adaha ee xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdilaahi Weyrax Kaariye oo aad u soo dhaweeyay mashruucan dhalinyarada loogu abuurayo fursadaha shaqo ugana mahad celiyay deeq-bixiyayaashan mashruucan dhalinyarada loogu abuurayo shaqada ayaa qayb ka ah kobaca dhaqaale wuxuuna la bilowday qorshaha GTB2 kaas oo socon doona muddo 5 sano ah wuxuuna ka howlgali doonaa deegaankeena degmooyinka Baabili Jigjiga Goday iyo Qalaf waxaa si absami leh cilbiyooda ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya uga hergelisay tuulada Mula ka faa'iideysanaya dadka iyo dunyada ku dhaqan tuuladaasi Mula ee ka tirsan degmada Qabri Bayax sida warbixintan inoogu sheegay wariye Farax Cabdi Dubad xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo ka duulaysa ka jawaabida baahida shacabka deegaanka waxa ay dadaalo badan u gashay sidii bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya ay u noqon lahayd mid looga qabtiro baahiyaha asaasiga oo ay ka mid tahay biyuhu iyadoo qorshayaasha ugu horeeyay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ahmiyadda saarteen ay ka mid tahay hirgelinta siyaasadda biyaha xukuumadda oo ka duulaysa qorshahanina waxa wakaaladda dhismaha biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka qoday ceelbiyood baahi badan ay u qabeen bulshada ku dhaqan tuulada Mula ee ka tirsan degmada Qabri Bayax waaxigeedu waxaana kormeer shaqo ku tagay goobtani ceelbiyoodka laga qoday mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiraxmaan Curaagte maray ku-xigeenka wakaaladda dhismaha biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Guleed Maxamed Cumar maray ku-xigeenka wakaaladda dhismaha jidadka ee dawladda deegaanka Soomaalida injineer Maxamed Amaadin injineer ka kala socday wakaaladdan iyo xafiiska jidadka ee dawladda deegaanka Soomaalida iyagoo halkaasi ku soo indheeyay qaab shaqeedka ceelkan gaar ahaan goobaha ay dadku ka cabaan iyo goobaha loogu talagalay xoolaha oo si habsami leh uga faa'iideysanayeen dad iyo dunyaba warina waxa ceel biyoodkan inooga waramay maray ku-xigeenka wakaaladda dhismaha biyaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Guleed Maxamed Cumar isagoo sheegay in la soo gabagabeeyay hawsha ceelkan lana ballaarin doono si bulshada ku dhaqan tuuladan iyo nawaaxigeedu ay si habsami leh uga faa'iideystaan maanta halkan waxaan u nimid ujeedada ugu muhiimsan in mashruucii aan ka qaadanay xafiiska biyaha heer deegaan ee ahaa biyagelinta qabalaha Mula inaan maanta halkan soo dhammaystirnay biyahaas oon ka soo jiinay ceel halkan ka qodnay ceelka iyo hadda halkan iyo darkan aagsan Waterboontiin waxay isku jiraan 1 kiiloomitir bay isku jiraan marka biyo waxaan ka soo jiinay ceelkan ka soo jiinay magaalada meel u jirta 5 kiiloomitir baan keenay shaqadii aan ka qaadanay xafiiska biyaha ee biyagelinta ahaa inaan soo dhammaystirnay wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiraxmaan Curaagte ayaa dhankiisa sheegay in ceelkani baahi ballaaran uu ka tiri doono bulshada ku dhaqan deegaankani noqon doonaan kuwo hela biyo nadiif ah oo ku filan horta biyuhu waa nolosha koowaad ee bini'aadanka qabalegana baahi badan oo biyood buu qabay marka baahidii uu qabay bay aad u daboolaysaa tu dunyo iyo tu dadeedba waxa ugu dhawaa markii biyo dhaamintooda distancega
sanxaskulle oo u jirta 30 kilomitir oo waliba dhawaan la qoday intaan sanxaskulle la qodinna waxa u jirtay 90 kilomitir ba biyo ugu dhawaabo Qarbayax ilaa Dhurwaala marka baahi badan ba ayay dabooli doontaa distaansiga inta leeg population-ka deganaya xoolo deganaana way deganaan doonaan dhankoodana bulshada ku dhaqan tuuladani Mulaha ee ka tirsan degmada Qarbayax ayaa si weyn u soo dhaweeyay ceelbiyoodkan xukuumaddu samaysay sheeganay inay baahi u qabeen ballan qaaday in ay si wanaagsan uga faa'iideysan doonaan ilaashanayaana ilaahayga nimcadan banaanka noo soo dhigay baan ku xamdeynaa dawladana waan ku xamdeynaa xoolii baa noo cabaya dadkii baa cabaya waa noloshii ka weeyaan biyihii banaankaasna loo soo dhigay marka hore ilaahay mahad iska leh kadibna waxa weeyaan dawladda deegaanka Soomaalida shacabka dimuqraadiga asxaabka Soomaaliyeed waxa weeyaan waxaan leenahay waad ku mahadsantiin wakaaladda biyaha xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa fiiro gaar ah siisay adeegga dhanka biyaha nadiifta ah sidii bulshada loo gaarsiin lahaa iyadoo guulo waaweyn laga soo hooyay siyaasadda horumarinta kheyraadka biyaha xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo waliba shabakadda caafimaadka xoolaha oo kaashanaya xafiiska xoolaha ee federaalka ayaa ku howlan ka hortagga cudurrada xuduudaha ka talaaba sida uu mar kale warbixintani ku sheegay wariyay Maxamed Jirde Ismaaciil istaraatiijiyadda ay qaadatay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ah in la sameeyo qorshe lagaga hortagayo cudurrada xuduudaha isaga gudba iyada oo taa laga duulayo ayaa waxaa la aasaasay shabakadda caafimaadka xoolaha ee deegaanka kuwaas oo ah xirfadlayaal ku takhasusay caafimaadka xoolaha isla markaana wada olole ballaaran oo lagaga hortagayo cudurrada ku dhaca xoolaha waxaana ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Guuleed Cali Kaahin oo sheegay inay ku hawlan yihiin ololaha talaalka xoolaha cudurrada isaga gudba xuduudaha loona dabargoyn lahaa waxaana tijaabo ahaan loo qaatay degmooyinka Jigjiga Awbare iyo Qarbayax kuwaas oo laga talaalayo cudurrada ku dhaca xoolaha oo ay ka mid yihiin furuqa ariga iyo sanbabka ariga xafladan aan ku daafurayno dabargoynta xanuunada loo yaqaano BBR-ka iyo sheep and goat box oo labaduba dadkeenu midna u yaqaanaan furuq midna keligii cune labadan xanuun runtii saad ogsoontihiin dadka adileyda ee deegaankeena ku nool dhibaato badan bay ku hayaan dadkeenuna noloshiisu sidiisaba xoolay ayay ku salaysan tahay oo waa xoololey marka xoolahaas dadkeena noloshiisa bay ku salaysan tahay ama 85% iyo in ka badan ay ku nool yihiin waxa muddooyin badan soo noqnoqonayay oo deegaankeena ka dhici jiray xanuunadan waxa daba la bilaabaya waxa ka bilaabmaya deegaankeena 3 degmo kamid ah degmada Awbare degmada Jigjiga iyo Qarbayax in dabargoyntii xanuunkaas 3 degmo oo hadda loo soo qaatay tijaabo ahaan hadduu 3 degmo si fiican uga dhaqan galo waa mid deegaankeena intii kale la gaarsiin doono sidoo kale waxa aan waraysi la yeelanay gudoomiyaha shabakadda caafimaadka xoolaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Dr. Cabdilaahi Xuseen kaasoo sheegay in tijaabo loo qaatay ololahan talaalka xoolaha 3 degmo walbana ay ka hawlgalayaan 8 kooxood oo ka shaqayn doona santarada iyo tuulo walba oo hoos yimaada degmada si loo sugo caafimaadka xoolaha isla markaana baaritaan loogu sameeyo dhiigga xoolaha mas'uuliyiintan ayaa waxa ay sheegeen inay iska kaashadeen hawlgalkan xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ururka dhaqaatiirta xoolaha Itoobiya iyo wasaaradda xoolaha ee heer federaal kuwaas oo qaatay qorshe kor loogu qaadayo kobaca dhaqaale laguna xaqiijinayo istaraatiijiyadda 5 sano haddaba waxa qorshahan tijaabo ahaan looga bilaabay dalkeena Itoobiya deegaanka Oromada iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan degmooyinka Awbare Jigjiga iyo Qarbayax waxa meel fiican maraya mashaariicaha horumarineed ee xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka hirgelisay tuulada Mulaha ka tirsan degmada Qarbayax wariye Farax Abdi Dubad ayaa warbixintaasi inoo eegaya xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dadaal ballaaran gelisay ka jawaabidda baahida bulshada deegaanka gaar ahaan wax ka qabashada baahiyaha asaasiga sida waxbarashada caafimaadka jidadka iyo biyaha haddaba tuulada Mulaha oo ka tirsan degmada Qarbayax iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka wada mashaariic horumarineed oo kala duwan waxaana kormeer shaqo ku soo maray mashaariicahani mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiraxmaan Curaagte maraya ku-xigeenka wakaaladda dhismaha biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Guuleed Maxamed Cumar maraya ku-xigeenka wakaaladda dhismaha jidadka dawladda deegaanka Soomaalida injineer Maxamed Amaadin injineer kala duwan oo ka kala socday xafiisyada jidadka iyo wakaaladahani waxaana ugu horeyntii ay mas'uuliyiintani booqdeen dhismayaasha health centerka dugsiga waxbarashada
hoolka shirarka ee tuuladaasi mula ka socda iyagoo soo kormeeray howlaha shaqo ee ka socda goobahani mashaariicuhu ay ka socdaan wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka duuleysa ka jawaabida baahida shacabka ay mashaariicahani noqon doonaan kuwo dhawaan adeeg hufan siiyo bulshada tuuladani mula ee degmada Qabri Bayax ku dhaqan siiya goobtan joogna wax weeye waa qabalayga mulaad oo ka tirsan degmada Qabri Bayax ujeedada koowaad ee maanta aanu nimidna waxay ahayd markii hore inaanu soo eegno dhamaystirka mashruuci biyaha ee ka socday qabalayga mulaad kadib waxaan kormeer kale ku soo sameynay mashaariicda kale ee ka socday degmada gaar ahaan qabalayga mulaad intaasi kadib ayaa waxaa mas'uuliyiintani u socdaaleen dhanka dooxada faafan ee duleedka tuulada mulaha oo laga hirgelinayo buundo fududeynaysa isku socodka qaybaha kala duwan ee tuulooyinka ku xeeran tuuladani mulaha ee degmada Qabri Bayax ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay injineer Maxamed Yuusuf oo ka socday xafiiska jidadka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo sheegay in si rasmi ah ay wakaaladda dhismaha jidadka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu wareejiyeen heshiiskii buundadani waxaan u nimaadnay bilaabitaankii mashruuca bridge-ka mulah kadib markaa nashqadeyntii iyo daraasaadkii xafiiska design and supervision enterprise dhamaystireen lana galnay heshiis shirkadda dhismaha jidadka ee dowladda deegaanka Soomaalida taasoo mataqaana hadda aan u gudagalayno bilaabitaankii oo aan ku wareejinayno shirkadda jidadka si markaa shacabka lagu haqabtiro baahida ka jirta isku socodka mariyo ku-xigeenka wakaaladda dhismaha jidadka dowladda deegaanka Soomaalida injineer Maxamed Amadin ayaa dhankiisa sheegay in wakaaladda dhismaha jidadka dowladda deegaanka Soomaalidu ay wada saari doonto ka jawaabida baahida bulshada waqtiga loogu talagalay ay ku soo gabagabayn doonaan dhisidda buundadani hadda dhisayn ahaan gacanta waan ku dhignay marka in la bilaabo maanta handa farxaan maadaama la wareegnay wixii ka dambeeyay in la bilaabo si bulshadu isu socodiyo waxba u sahlo hadda maadaama uu jidkeena xilli roobaadkii uu aad u kala xidho dhaqaale ahaan laftirkeeda iyo isu socod ahaanba saameyn weyn uu ku lahaa si bulshadu markaa uga faa'iideysto hagardaamooyinkii ka jirayna looga xaqabtiro mashaariicahani horumarineed ee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka wado tuuladani mula ayaa noqonaya kuwo ka jawaaba baahida bulshada ku dhaqan tuuladan iyo waliba nawaaxigeeda wali akhyaar halka warkaas sida tooska idinkaga imaanayana waa stuudiyaha STV ee magaalada Jigjiga mas'uuliyiinta xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa qada sharaf u sameeyay qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku sugan xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga iyadoo kulankaasi qada sharaftaana lagaga wada tashanayay sidii si wada jir ah diiradda loogu saari lahaa barnaamijka dejinta wariye Farax Cabdi iyo markale mas'uuliyiinta xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qada sharaf u sameeyay qaar ka mid ah qurba joogta dowladda deegaanka Soomaalida ee ku sugan xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaana kulankani qada sharafka ka soo qayb galay wasiirka xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka dowladda deegaanka Soomaalida mudane Suldaan Maxamed wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Maxamuud Mubaarak wasiir ku-xigeenka xafiiska qurba joogta dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Dombe wasiir ku-xigeenka wakaaladda dhismaha biyaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Guleed Maxamed Cumar iyo waliba qurba joogta ka kala timid dacalada dunida ee u dhalatay deegaanka Soomaalida ee ku sugan waqti xaadirkan xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo kulankan qada sharafta ahna looga wada hadlay sidii si wada jira dadaalka xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ugu jirto sidii bulshada deegaanka Soomaalida ee u badan xoolo dhaqatada looga dhigi lahaa xoolo dhaqata beeraley siyaasadda barnaamijka dejintana loo hirgelin lahaa isla mar ahaantaana kaalintooda ay qurba joogtu uga qaadan lahaayeen kulankan qada sharafta uu soo agaasimay xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ugu horeyntii waxaa ka hadlay wasiirka xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka deegaanka Soomaalida mudane Suldaan Maxamed isagoo ka waramay istiraatiijiyadaha kala duwan ee dhanka horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee xukuumaddu u dejisay isla mar ahaantaana la qaatay siyaasadda dhanka dejinta loogu sameynayo xoolo dhaqatada looguna bedelayo xoolo dhaqata beeraley si ay isku filnaanshiyo nololeed u gaadhaan waxaan u sheegay in qurba joogta ku dhaqan dacalada dunida ee deegaanka Soomaalida u dhalatay ay qayb ka qaadan karaan horumarinta barnaamijkaasi iyagoo ku taageeri kara cilmiyo iyo waliba tiknoolajiyadda casriga wadamada ay joogaan lagaga shaqeeyo dhanka beeraha wasiirka xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka deegaanka Soomaalida mudane Suldaan Maxamed ayaa uga mahadnaqay qurba joogta deegaanka Soomaalida sida wanaagsan ay waqtigan uga qayb qaadanayaan horumarka baaxadda leh kuna dhiirigeliyay inay dhanka wax soo saarka gaar ahaan barnaamijka dejinta ay kaalin ka geystaan meel walba oo ay joogaan
ayaa maanta halkan aan ugu talagalnay inaan qadadan munaasabadan inaan isku wareysano kaalinta qurba joogtu ay ku leedahay horumarka deegaankeenna oo runtii wax badan aad ka qabateen marka xukuumadduna directionada ay qaadatay 5 sano u dambeysay iyadoo ay ka mid ahaayeen barnaamijka dibadejinta xafiiska waraabka iyo horumarinta ayaa ka mid ahaa qorshooyaashii ugu weynaa 5 sano oo ay xukuumaddu ay ku howlanayd kaasoo runtii natiijo fiican laga soo hooyay marka idinkoo xoogaal u ah guud ahaan horumarka iyo ballaaran ee deegaankeenna ka haran qaaday oo mar walba aad ESTV-ga iyo websaydyada intaba aad ka akhrisataan intiina badanna dee aad waddanka la timaadeen ood xoogaal u tihiin dhankoodana qurba joogta ku dhaqan dacallada dunida ee deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhalatay ku sugan xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa uga mahad celiyay qadar sharaftan lagu maamuusay isla mar ahaantaana waxa ay sheegeen in dadaalka xukuumadda ay ugu jirto horumarinta bulshada deegaanka ay qaybtooda ka qaadan doonaan isla mar ahaantaana ay si laba jabaari doonaan dadaalka ka go'aanshiyaha leh waxaana martiqaadka naloo sameeyay waa martiqaad aad u qurux badan waxaana ka dareemi karnaa yacni kalgacaylka iyo wanaagga loo hayo qurba joogta inay deegaankooda ku soo noqdaan maalgeliyaan runtii annaguna waxaan ugu baaqaynaa annoo iyaga wakiilka deegaankii maanta ilaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer deegaan inay tahay fursado laga maalgashay ay jirto lana jecel yahay lana soo dhaweynayo runtii aadna loogu hilow yahay inay deegaankii ka qayb qaataan maalgelinta deegaanka horumar weyn baa ka bilowday xukuumadda iyo xisbigana way dadaaleen runtii waan inaan ugu mahadnaqno ku garab istaagnana sidoo kale qurba joogteenna waxaa noogu aadan qaybta maalgashiga inaan kaga qayb qaadano beeraha guryeynta dhismaha shirkadaha dhinac kasta xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa 5 sano ee la soo dhaafay dadaalada ay ugu jirto horumarinta bulshada deegaanka waxa ay saldhig uga dhigtay horumarinta bulshada xoolo dhaqatada loo bedelayo xoolo dhaqata beeraley si wax soo saarka beeruhu u noqdo mid uu dalka iyo deegaankuba ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalkana qayb ka qaata tababar ku saabsanaa kobcinta aqoonta barayaasha wax ka dhiga kulliyadaha deegaanka ayaa waxa uu ka furmay magaalada Jigjiga warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa inoo haya wariyay Mustafa Yuusuf tababarkan oo ay ahmiyadiisu ahayd sidii barayaasha wax ka dhiga kulliyadaha nidaamka TVET-ka wax ku bara kor loogu qaadi lahaa kartida iyo aqoontooda iyo qaabka ay u soo saari lahaayeen teknolojiyad cusub isla markaana ay ka soo qayb galeen barayaasha wax ka dhiga dhammaan kulliyadaha deegaanka ayaa waxaa tababarkani oo uu soo diyaariyey xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya furitaankiisa ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdirasaaq Saxane oo barayaashani kulliyadaha u soo jeediyey in cilmiga iyo xirfadda lagu bixinayo tababarkan ay ka faa'iideystaan kulliyadaha deegaanka macallimiintoodii waa tihiin macallimiintii looga baahnaa waa tihiin ay soo saareen cudud wax baratay oo ka qayb qaadan karta horumarka maanta deegaanka ka socda waxaad ogtihiin TVET-ka in maxaan ku rahay ahmiyad aad u ballaaran xukuumaddeenu ay siisay isla markaana maxaan ku rahay laga dhisayo deegaankeenna in ka badan 6 kulliyadood oo cusub meeshay 8 horena sii jireen marka waxaa loo baahan yahay inaad tusaale u noqotaan oo kuwan cusub ee la sameynayana maxaan ku rahay kuwii macallimiinta ka noqon lahaa idinku soo saartaan baa loo baahan yahay si aad taas soo saartaan waxa loo baahan yahay waxa laga maarmaan noqotay in la dhiso maxaan ku rahay capacity building la idin sameeyo aqoontiina kor loo soo qaado isla markaana maxaan ku rahay la idin baro hard skill-ka tababarkan maxaan ku rahay hard skill-ka iyadoo macallimiintana deegaanada kale la idinka keenay kolka waxa loo baahan yahay waqtigan uu tababarku socdo inaad noqotaan kuwa si firfircoon uga qayb qaata sidoo kalena maareeyaha kulliyadda Polytechnic ee magaalada Jigjiga Mudane Maxamuud Xaaji oo tababarkani ka hadlay ayaa sheegay in tababarkani muhiimad gaar ah u leeyahay barayaasha xagga barasbarasho iyo waliba sidii barayaashu u awoodi lahaayeen xurinta teknolojiyada cusub waxaan saakay halkan aan soo nimid waxa weeye inuu noo furmo tababar aan muddo dheer aan sugaynay tababarkaas oo kulay aan rajeynayno ma isbedel fiican inuu ka keeni doono dhanka barasbarasho dhanka kor u qaadida awoodda macallimiinta u leeyihiin inay soo saaraan teknolojiyad inay sameeyaan value chain-ka habkii maartay teknolojiyada loo saari lahaa inay isku filnaansho gaaraan oo manhajka iyo curriculum development-ka qaybahaas oo dhan ay ka shaqeeyaan waxa weeye waa tababar intaasoo dhan ba ka koobnaan doona muddo 12 cashaan socon doona tababarkan oo ay bixinayaan khabiiro ka socda heer federaal ayaa waxaa sidoo kalena casharada iyo culunta ay barayaasha wax ka dhiga kulliyadu ku qaadan doonaan tababarkan warbixin naga siiyey garwadeenka geedi socodka tababarada natiijada ku salaysan ee xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Saciid Maxamed tababarkan waxa uu muhiim u yahay
sidii kuliyadaha deegaanku u noqon lahaayeen kuwa soo saara xirfadlayaal karti leh isla markaana iskood u shaqaysta sidoo kalena ka qayb qaata horumarka deegaanka iyo dhimidda saboolnimada macallimiintan tababarka qaadanaysa markaynu fiirino dhanka kale waa warshadii soo saaraysay arday ama xirfadlayaal kala duwan kuwaasuu deegaanku aada ugu baahan yahay run ahaantii deegaankeena si loo gaadho himiladeena qarameed ee ah inaynu ka mid noqono wadamada dhaqaaloogu dhexdhexaadka yahay waxaa aada muhiim ah inaynu noqono wadan wax soo saar leh wadan wax soo saar leh waxaa isagana base u ah inuu helo cudud xirfadlayaal karti leh wakhtigan oo goobaha waxbarashada iyo kuliyaduhu diyaargarow ballaaran ugu jiraan bilaabista waxbarashada sanadka cusub ee 2008 ayaa waxa uu tababarkani kaalin muhiima ka qaadanaya dardargelinta iyo kor u qaadista waxbarashada kuliyadahani qurbajoog u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan degmada Awbare oo fadhigoodu yahay wadanka Holland ayaa agab kala duwan gaarsiiyay dugsiga hoyga agoonta ee magaalada Jigjiga sida warbixintan inoogu sheegay wariye Ciga Axmed Buux qaar ka mid ah qurbajoogta u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan degmada Awbare oo ka soo kicitay afrika wadankaasi Holland ayaa gaarsiiyay dugsiga hoyga agoonta ee magaalada Jigjiga agab kala duwan oo iskugu jira kombiyuutar makiinadaha dharka lagu taro buugaan iyo qalimaan si ay gacan uga geystaan dadaalada kor loogu qaadayo garadka aqooneed ee agoonta ay waalid tireen nabadiidkii hadda ka hor ka dhaqdhaqaaqay deegaanka Soomaalida Itoobiya ee wax ka barta dugsiga hoyga agoonta ee ku yaala magaalada Jigjiga munaasabadii agabkan ay ku wareejinayeen qurbajoogtan mas'uuliyiinta dugsiga hoyga agoonta ee magaalada Jigjiga ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxa xafiiska cadaaladda ee degmada Jigjiga xildhibaan Deeqa Cabdilaahi wakiilka qurbajoogta degmada Awbare ee wadankaasi Holland Marwa Caasha Muuse Xuseen ku-xigeenka ahna kusimaha dugsiga hoyga agoonta ee magaalada Jigjiga mudane Maxamuud Cumar Nuur waxayna mas'uuliyiinta kala duwan ay munaasabada kadib wareysiyo kala duwan siiyeen telefishinka caalamiga ee ESTV tilmaamayna in talaabadan ay qaateen qurbajoogtani ay tahay mid lagu daydo isla markaana sii xoojin doonta qorshayaasha kor loogu qaadayo tayada aqooneed ee ardayda wax ka barata dugsiga hoyga agoonta ee ku yaala magaalada Jigjiga alaabtan oo ay ka mid yihiin kombiyuutarada makiinadaha maxaa la yiraahdaa buugaag wax lagu baranayo looxaantaas oo ku lagu baranayo electriga oo doonayno dugsi farsamo inaan meeshan ka dhex furno haddii alla ka dhigo oo si ay caruurtu haddii ay iskuulka wadi waayaan ama maxaa la yiraahdaa iyagoo iskuulkiina xitaa ku jira ay waqtigooda dheeraadka ah sidii ay farsamo u baran lahaayeen qurbajoogtaas oo isa soo xilqaantay sidii agoonta hooyooyinkoodii iyo aabahood nabadiidku laayeen ay u soo gargaaraan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa sida sharafta leh ay u soo maamuseen dugsiga hoyga agoonta ee ku yaala magaalada Jigjiga oo ay wax ka bartaan arday aad u fara badan ayaa waxa mas'uuliyadda ardaydaasi dusha u ridatay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u diyaarisay dhammaan xanaanada iyo waxbarashada ay u baahan yihiin ardaydan agoonta iyadoo oo baryahan dambana ay soo tarayso in qurbajoogta iyo ganacsatada u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya ay xilka iyo waajibaadka ka saaran caruurtan ay uga soo bixi lahaayeen waxa xariga laga jaray qaar ka mid ah mashaariicaha 2007 tirsi taariikheedka dalkeena Itoobiya ee laga waday hospitaalka Hargeysa warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inaga soo diray wariye Cabdi Fataax Axmed mashaariicdii 2007 tirsiga Itoobiya ee dhismaha deyrka weyn ee hospitaalka Hargeysa ayaa xariga laga jaray mashaariicdan 2007 tirsiga Itoobiya ee dhismaha deyrka weyn ee lagu xayndaabayo hospitaalka Hargeysa ayaa ah mid bilicda iyo qurxinta hospitaalka Hargeysa qayb weyn ka qaadanaya markaasina dhismaha deyrka hospitaalka Hargeysa lagu soo gabagabeeyay muddo 45 cisho halkaasina xariga jarkii dhismaha deyrka hospitaalka Hargeysa uu ka soo qayb galay gudoomiyaha maamulka gobolka Afdheer waxaana si wada jir ah xadhiga uga jaray dhismahani deyrka weyn ee hospitaalka Hargeysa boqolkiiba boqol la soo gabagabeeyay gudoomiyaha maamulka gobolka Afdheer mudane Maxamed Axmed Barcun iyo maareeyaha hospitaalka Hargeysa ee gobolka Afdheer mudane Siyaad Nuur Cabdi ayaa halkaasina bulshada kula dardaarmay inay tani tahay hantidooda markaasina ay ilaashadaan waxaana hadaladoodii kamid ah sida tan hospitaalkan oo runaantii hospitaal weyn oo standard ah isla marhaanta inuu adeega 10 degme ayaa waxa jirtay hospitaalkan oo inuusan lahayn deyr lacagta lagu dhisay oo ka badan 9 milyan lacag ka badan loo go'aamiyay in deyrka lagu dhiso hospitaalka Hargeysa bulshada waxaan kula dardaarmayaa
hosbitaalkan waa hosbitaal weyn oo standard ah isla mar ahaanta waxa uu dhameystiran qalabkii iyo dhammaan dhakhaatiirtii kala duwaneed ayaa u dhameystiran in ay bulshada ku nool gobolka Afrika dhamaantood inay ku xirmaan hosbitaalkan in aan xariga ka jarno gidaarka weyn ee isbitaalka Hargeysa kaasoo socday muddo 2 bilood ah muhiimadiisuna ay ahayd sidii isbitaalka Hargeysa loogu sameyn lahaa gidaar waana magaranaysaa baahidii ugu weyneed ee isbitaalka oo la daboolay ma dhihi karnaa dhinaca kalena dhankooda odayaashii iyo waxgaradkii culimo diinkii iyo waliba hooyooyinkii ka soo qayb galay xarika jarka deyrka cusbitaalka Hargeysa ee gobolka Afdheer ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin markaasina ballan qaaday inay hantidooda ilaashanayaan waxaanu aad mahad ugu celinaa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo sida fiican darbida loo dhisay waanu ku faraxsanahay hadii aanu na culimo diinkiina waxaan aad u soo dhaweynaynaa in bulshada ku nool gobolka Afdheer isbitaalka ay si fiican u danayso haddaba mashaariicdani 2007 ee tirsiga Itoobiya ee dhismaha deyrka weyn ee cusbitaalka Hargeysa ayaa qayb ka ah bilicda cusbitaalka Hargeysa markaasina ay ku baxday lacag ka badan 9 milyan halka dhismaha deyrkani isku wareeg ka kooban yahay 1200 mitir laguna soo gabagabeeyay muddo 45 cisho ah oo ka yar waqtigii loogu talagalay in lagu soo dhameystiro deyrkan cusbitaalka Hargeysa ee gobolka Afdheer Cabdifataax Axmed Kaabe telefishinka caalamiga ee TV cusbitaalka Hargeysa ee gobolka Afdheer xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ee degmada Gunogado oo kaashanaya ciidanka liyu booliska ee fadhigoodu yahay degmadaasi Gunogado ayaa talaalka xoolaha ka fuliyay degmadaasi sida warbixinta umuurtaasi ku saabsan inoogu soo diray wariye Maxamed Ibrahim Ruushka talaalkani ay fulinayaan ciidamada booliska gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ee degmadaasi Gunogado ayaa ahaa mid lagu talaalayo xoolaha ku dhaqan degmadaasi Gunogado ee gobolka Jarar waxaana talaalkan oo laga fuliyay ceelka Afweyne ee degmadaasi Gunogado iyagoo talaalkan dhinacooda si diiran u soo dhaweeyay bulshada xoolo dhaqatada ee ku nool deegaankaasi kuwaas oo ka mahad celiyay tallaabooyinka horumarinta ciidamada booliska gaarka ee deegaanku ay ka wadaan deegaanka ariga iyo magaran xoolaha wixii daawo ahaay magaran furuqa iyo wixii cudur ahaay magaran xoolaha hayay in magaran si wanaagsan daawooyinkii si wanaagsan loo bixiyay dawladdu way mahadsantahay haddaan nahay shacabkii reer Gunogado xanaanadii xoolaha waa naloo keenay loda geela ariga waxaana laga daweynayaa qaniinka iyo goraduufka ariga ayaa laga daweynayaa taliyaha ciidamada booliska gaarka ah ee fadhigoodu yahay degmada Gunogado Colonel Germany oo isaguna ka hadlaya talaalkani ay ka fuliyeen sabadaasi Afweyne ayaa shaaca ka qaaday intan iyo markii ciidamada booliska gaarka ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ay meel saareen arrimaha nabadgelyada ay u soo jeesteen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen geediga horumarineed ee deegaanka ka socda halkan oo saaka ma garanaysaa maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo ciidanka iskaashanaya aan ka fulinayno talaalka xoolaha waa ceel weyn oo ummadda ay ku soo aroorto markii horumarkii meel walba u gaadhay ee nabadgelyadiisa loo sugay ayaa waxaa ma garanaysaa dawladdu ay go'aan qaadatay in ma garanaysaa shacabka wax alaala waxay baahan yihiin laga taxakuleeyo gudoomiyaha degmada Gunogado mudane Yuusuf Xasan oo ka hadlaya talaalkani ayaa shaaca ka qaaday inuu aad ugu faraxsan yahay tallaabooyinka ciidamada booliska gaarka ee deegaanka Soomaalidu ay ka wadaan degmadaasi Gunogado iyo kaalinta ciidamadu ay ka qaadanayaan arrimaha horumarka iyo gacansiinta bulshada xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanadaasi saaka kormeer ugu soo baxnay ceelka ciyowga inay ma taqaanaa ciidamada gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo anagoo ah maamulka degmada Gunogado ma taqaanaa talaalkii xoolaha ka fulino maadaama ma taqaanaa uu joogo waqtigii talaalka xoolaha ayaa saaka u soo baxnay inaan talaalno xoolaha talaalkan ay sida wajirka ay u fuliyeen ciidamada booliska gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ee fadhigoodu yahay degmadaasi Gunogado iyo xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ee degmadaasi ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada booliska gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalidu ay si weyn uga qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee horumarka laga wado deegaanka oo dhan talabadaas oo noqotay mid si diiran ay u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gudaha dowladda deegaanka Soomaalidu Maxamed Ibrahim telefishinka Soomaalida Itoobiya degmada Gunogado akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaas waxay noogu eeg warkii oo aad kala socotay telefishinka caalamiga ah ee ESTV anigoo Maxamed Axmed Cumar inaan idin la socodsiinayay tan iyo intaynu isugu imaan doono wararkan warar la mid ah oo aan akhyaarta igala qayb gashay tabinta warkan oo isku duubnayd leh sidaas iyo amaana Allah